siyaasiyiinta Cali Maxamed Waran Cadde iyo Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa labadooduba waxa ay ka hadleen sida ay u qanacsan yihiin xilkan uu magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxayna yiraahdeen Ilaahay baa mahad leh waa xaflad aad iyo aad u qurux badan waxaynu u mahad celeynaa ganacsadaha Jambiir fahmay inuu isugu yeero raggii meesha ka tagay iyo ragga maanta shaqada qabtay labaduba inay laga maarmaan tahay in la isugu yeero oo kuwii hore tagayna loo mahadnaqo kuwa yimidna la soo dhaweeyo taa waxaan leenahay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay raggii shaqada hore u hayay waxaan leenahay soo dhawaada ragga shaqada hore u hayay waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ragga imika yimidna waxaan leenahay soo dhawaada mid yaroo kaftanana waan ku darayaa horaa loo yidhi garxajisku malaha wuxuu ku wanaagsan yahay muxaafadada marka maanta halkan waxaa ka muuqata qurux fara badan waa halkaasoo loogala sii dhowaado ayuu dalka iyo dadkuba inoogu wanaagsanaanayaan gaagaab ganacsadaha ina casumay ayaan marka ugu horreysa u mahadnaqayaa marka kalena waxaan soo dhowaynayaa asxaabta la magacaabay ee uu madaxweynuhu xilalka cusub u igmaday waxaan si gaara u soo dhowaynayaa si gaara Axmed Toorna si gaara u soo dhowaynayaa wasiirka waxbarashada gaagaab dhow sheeg inaan aad ku soo dhowaynayo waxa aan doonayaa oo kale inaan sheego qolada xilka ka tagtay iyo qolada xilka timi labaduba waa tiim isku mid ah mar kale inay ku soo noqdaanna waxba kuma aha ilaahay annaguba 20 goor in ka badan baanu soo noqonnay oo aanu tagnay meesha waa la yimaadaa lagama fogaado markaa ninkii cadhooday ee ka fogaado baan ka maqnaanaya aniga Cali Waran Cadde waana kaasoo imika la taliyanimadaasaan joognaa inkastoon Cali ku yiri la taliyanimada ka warano wuxuu igu yiri inagu madaxweynaha baynu wax u sheegnaa wasiiradu way u shaqeeyaan buur